course kani waa course kani public speaking ka amba aqoonta fagaara ka hadalka aqoonta fagaara ka hadalku waxaynu u qaybin doonaa saddex qaybood course kan aynu kaga hadli doono qaybta koobaad waxay noqon doontaa faham guud inaynu ka qaadano waa maxay aqoonta fagaara ka hadalku qaybta labaadna waxay noqon doontaa ahmiyadda uu leeyahay fagaara ka hadalku qaybta u dambeysana waxay noqon doontaa qaabka qofku u noqon karayo fagaara ka hadle wanaagsan sidoo kale uu u diyaarin karayo khudbadaha iyo presentationada uu jeedinayo haddii aan ku horeeyo qaybta koobaad oo noqonaysa qeexitaanka fagaara ka hadalku waa awoodda aftahanimo ee uu qofu leeyahay inuu cid kale uu kaga dhaadhiciyo fikirka uu wado ama waxa uu sheegayo ha ahaato aqoon ama ha ahaato fikir uu doonayo inuu qofku gudbiye wala tasaalaysa inuu qofku noqdo qof saameyn leh la fahmo wixiisa sidoo kale fariintiisu ay gaadho meel dheer qodobka labaad haddaynu nimaadno waa maxay ahmiyaddu leeyahay fagaara ka hadalku fagaara ka hadalku waxa uu leeyahay ahmiyad aad waxa weeyaan u weyn oo kow ka tahay inuu qofku noqdo qof la fahmi karayo oo balaaqale oo cidda uu doonayo inuu wax ka dhaadhiciyo amba hal qof ha ahaato amba jamac kale ha ahaadaano fara badane uu noqon karayo qof weedhiisu ay noqoto mid la fahmi karayo oo ka dhaadhicin karayo fikirka uu sido amba aqoonta uu wado qodobka labaad waxa noqonayaa inuu qofku noqdo qof kalsooni u leh inuu wax gudbin karayo waayo dadyo fara badan oo madax ah dadyo fara badan oo maamul ah iyo dadyo kala duwan oo shaqooyin kala duwan haya caqabada ugu weyn ee haysta waxa weeyaan inay kalsooni darro ka qaadeen inaanay si wanaagsan u hadli karin u gudbin karin waxa weeyaan qodobkay doonayaan inay sheegaan ama aanay u noqon karin dad waxa weeyaan saameyn leh markay noqoto dhanka hadalka marka tani waxay qofkii ku kaansanaysaa inuu noqdo qof bila kalsooni marka waxa uu dhisaa aqoonta fagaara ka hadalku waxa ay qayb weyn yacnihi ay ka qaadataa inuu qofku noqdo qof kalsooni isku qaba markay noqoto dhanka gudbinta xogta uu rabo inuu cid la wadaago qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa inuu qofku noqon karayo qof hogaamiye wanaagsana waayo waxaa la dhahdaa hogaamiyaha wanaagsani waa hogaamiyaha cidda uu maamulayo si fiican wax uga dhaadhicin karaya la fahmi karayo hadal ahaana saameyn yeelan karaya marka qof kasta oo cid hogaamiya ama ganacsi ha ahaato ama waxa weeyaan siyaasad ha ahaato amba waxba ahaatee yacnihii dad kale ama ururada bulshada ha ahaatee wuxuu noqon karayaa qof waxa weeyaan hogaamintiisu ay wanaagsan tahay waayo hogaaminta iyo aftahanimadu waa laba shay oo aad isugu sidkan muhiimna waa qof kastoo waxa weeyaan cid hogaaminayana ay tahay inuu aqoonteeda yeesho qodobka ugu dambeeya afraad waxa uu noqonayaa qofka aqoontan leh fagaara ka hadalku waxa uu noqdaa qof waxa weeyaan aragtidiisa fahamsiin karaya dadka oo garan karaya halka loo socdo iyo halka laga imanayo iskuna xidhi karaya labadaas waxa weeyaan taariikhood oo noqonaysa halkii shalay laga yimid iyo halka loo socdo haddii uu labada qofka isku xidhi karayo awood u leeyahay inuu isku xidhana waxa fududaanaysa inuu heli karayo team la xaqiijiya riyada uu doonayo inuu gaadho haddii waxaan isweydiinaynaa maxaa keena inuu qofku cabsado oo ka cabsado ama uu ka baqo inuu dad ka hor hadlo dhowr shay baa keena shayga koobaad wuxuu noqonayaa xaaladda la yidhaha glossophobiyadu waxa weeyaan waa chemical reaction jirka ka dhaca oo la tacalluqa dhanka garanaysaas physiology-ga taas oo ka dhigaysa qofkii inuu noqdo qof ka argagaxa markuu dadka soo hor istaago aad yacnihi u baqa waayo markii underninka dheecaanka la yidhaha keliyuhu soo daayaan waxay weerarayaan dhammaan organiska waaweyn hadday noqoto wadnaha sambabada beerka tanoo keenaysa inuu jirku u shaqeeyo qaab ka duwan qaabkii caadiga ahaa oo anticlockwise-ka waxa la dhahdo ama vice versa waxa la dhahdo inuu u shaqeeyo tanoo qofkii ku keenaysa caqabada inuu yacnihii calaamado badan isku arki karo dhidid fara badan hakaako fara badan waxa weeyaan in labaqsiga indhihiisu ay aad u fara bataan gariir yacnihii inuu sameeyo jirkiisa iyo inuu noqdo qof ilooba waxa uu doonayay inuu ka hadlo imise jalba kugu dhacday inaad waxa doonaysid qodob muhiim ah doonaysid inaad sheegto oo aad sheegtay waxaan muhiim ahayn laga yaabo inay aad u badan tahay waa qayb ka mid ah waxyaala la yidhahdo public speaking anxiety baa la dhahdaa waana cabsida fagaara ka hadalka waxa weeyaan cabsida qofku dareemo fagaara ka hadalka waxyaala kale keena waxaa ka mid ah inuu qofku uu khibrad hore yacnihii aanu lahayn oo ahaa qof xidhxidhan shakhsiyan oona ahayn social ahayn tan oo qayb yacnihi ka qaadanaysa uu ka qaadanaya fikirkiisa uu aaminsan yahay in bulshada la dhex galaa oo ay ku keensanayso inuu noqdo qof agnaana oo aan waxba gudbin karin maadaama qof social oo dadkii waxa weeyaan dhexgalkoodii aan ku wanaagsanayn
waxa kaloo keeni kara inaanu qofkani inuu hore usoo arkay أو يعني عقبات كنا قتي وقت هذا كم يدري يصير هذا إن معلن كيسيو كلا أم عدة أولها اللي أي دبعته وجيستي إن حاجة أمينات أو يتري وحوي مهلي كتير سيدان مسمين كتير وحوي أي بهتي شيء أم بوا أكيد اللي بهتي لي يوكله هو يعني إصلاها يعني هذا الاتصال هنا كله أرضي الدنيا كم عدد من البرزنتيشن شيء يصير في عنه اللي كروين أنا معنا كولا هذا سوي نكسنو دهري كليسا والله جاي بينو دلعي أم بوا في لجادي فتلفت جدا waxay kan sanaysaa درجتي قلدنا ka aaminto inuu qofku dadka hor hadlo marka waxaad ogaataa mar walba inaanad dad ka hor hadlayn oo public speaking ko aanu ahayn inaad dad badan ka hor hadasho laakiin ay tahay inaad hal qof dad la hadlaysa hadaa dad badan la hadlaysa aad tahay qof si kalsooni leh u gudbisan karaya aragtidiisa hadalkiisa iyo fikirka uu qabo intaba hadaba sidoo qofku u diyaarin karaya qodbada qofku wuxuu diyaarin karaya waa in uu ogaado cidda uu la hadlaya cidda ay tahay marka marka la taagan waxa waxaan oo kale audience analysis baa la radaa qofku inuu si fiican u falanqeyn karayo oo u dul istaagi karayo cidda uu doonayo inuu la hadlo ma arday secondary school dhigtaba dugsi sare dhigtaba ma arday jaamacadeedba ma dad siyaasiyiinba ma dad ganacsataaba ma dad wax weyn aqoonyahan kalaba yani cidday tahay inuu qofkani ogaadaa waxay ka saacidaysaa in ay u sahli karayso in uu u diyaarin karayo qodbad ku habboon kulana hadli karayo waxa weeyaan luuqad ku habboon tusaalahaan kale haddaad la hadlayso dad beeraley oo jooga amba ari raacataa iyo haddii aad la hadlayso dad ganacsataa oo waxbartay oo magaalada jooga luuqadaha aad u kala isticmaalaysaa aad bay u kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qolooyinka waxbartay inaad luuqada Englishka kale aad isticmaasho terminolojiyadaha qaar amba eray bixinaha qaar aad luuqada Englishka u isticmaasho laakiin qoladan kale waxa weeyaan aan waxba baran دوانا دو استعمالي كرتها هذا الله تعلقة دقنك أو أصلي هنا صومالية أو ندو استعمالين وحلوقة أو أجانب وكلا ديرادا وايو وحماش يميني جاب فهم لأنا مركا إن تكو قرانا يصاب عد الله هذا ساعد عيد هاي دادو دي انت عيد هاي وايد داد لفتك دو كحرنت هذا القو هير كود أقوانات يعني ليفل كوي هاي ليفل كود أقوانات إيو إن أتسفي عن أدو قرانا يصاب وحويا عندني عرفتي آمين سنتها وايد ضد يعني الشيء كآمين سن وح قلدن أو دون سنة تكرر على عيسو هديه دون سنة تكرر على عيسو شيء سيدا قلدنا يفهم سين وين دو هذيك سن كريسا ودو سيدي الجروب كريسا سيون أكسن أو بلارن أو هذه نقطة يعني أحاديثتي هذه نقطة أيدي القرآن كأي هذه نقطة حكتي كلا أقنت كسر السنة دي دلفت جدو ده واحد هنا دو سيدي الجروب ما كان أريس ناليسيس كوينات استدي كريسات براتو عند الله اللي ساعده هنا سفي عنه تصير كرانيسو وياه ود كسيدي الجروب كريسا marka laga hadlayo marka diyaarinta yani khudbadda ama presentationku laba qaab loo raacaa marka diyaarinayso khudbad qaabka loo raacay wax weeyaan inaad mowduucan aad ka hadlayso horta aqoon u leedahay haddii aanad shaygan aqoon u lahayn haba yaraatee wax weeyaan kama hadli kartid waad ku fashilmaysaa qodobka labaadna waxa weeyaan inaad garanayso sourceskaad ka keenayso aqoontan aad doonayso inaad dadka la wadaagto amba xogtan aad doonayso inaad dadka la wadaagto tusaale ahaan kale haddii aad ka hadlayso waxa weeyaan wax ku saabsan beeraha waana aqoon u leedahay aqoontii beeraha haddii aad aqoon yar u leedahay laftigeeda way ku saacidi karaysaa iyo waana garan karaysaa halkaad ka keeni karayso tusaale ahaan kale dad aqoon leh inaad la kulanto aqoontii beeraha leh inaad la kulanto dad inaad la kulmi karayso dad waxa weeyaan ma garanaysaa ka saacido oo kala taliya oo yani aqoontii leh inaad buugaa ka akhri karayso saddex inaad waxa weeyaan ka daawan karayso khudbada laga diyaariyay afar inaad yani warbixino laga sameeyay laftigooda iyagana aad dhegeysan karayso ama aad daawan karayso that's it marka inaad garan karayso halkaad ka doonanayso aqoonta dadkan la wadaagayso iyo xogta la wadaagaysa nooca ay tahay haddii ay tahay tusaale kale shir oo tahay maamul shirka waa inaad garanaysaa marka hore ajendihiisa like oo ajendaha waxa loo sii sameeyaa waa inuu qofku ku sii talagalo marka horeba inuu noqdo qof waxa weeyaan kasii warhaya waxa laga hadlayo marka inaad ajendaha diyaarisaa waa shay isaguna aad iyo aad muhiim ah hadduu bilaa ajenda shirku yahay hadalkuna yani wuxuu noqon doonaa waxaan lahayn meel laga bilaabiyo meel lagu dhameeyo marka waa inaad soo qodobeysataa waxaad ka hadlaysana inta badan qaladaadka dadku galaan waxa weeyaan waa inaanu qoranin waxa uu doonayo inuu ka hadlo qoraalku ma inaad dhammaan waxaad ka hadlayso dhan qorto laakiin waa inaad qorto si guud saddexda qaybood u qaybsato khudbadda amba hadalku u qaybsamo waa introduction waa body iyo conclusion amba wuxuu noqonayaa opening iyo body iyo closing يعني وهذا الكاب introduction كيسا يوحى لغو فرفرانيو وشيغا سيهاي اللي سلا فهمو ديتنا بوريغو نقوني هالكي لو سعوديو معدي هذا الكاب closing كنو حاو نقوني يا أما وحويا conclusion كو إن هذا الكاب
kusoo gebagabayso yacni qaab la tacalluqa isla wixii aad hore uga hadlaysay oo dib u xusuusina iyaduna taasina waa mid aad iyo aad muhiim u ah markay presentation tahayna sidaas la mid waa inaad dadkii garanaysaa xogtii inaad garanaysaa meel aad kasoo qaadanayso yacni inaad dadkii garanayso iyo inaad xogtii garanayso meel aad kasoo qaadanaysaa waxay kuu sahlaysaa iyo kuu fududaynaysaa inaad si fiican dadka uga dhaadhicin karto sidoo kale waa inaad aqoon u leedahay presentationka qaabka loo diyaariyo oo powerpointka aad ku diyaarin karaysaa ood aqoon u leedahay inaad powerpointka ku diyaariso haddii aanad lahayn inaad adeegsan karaysa cid powerpointka diyaarin karaysa laakiin adigu aad xogta si fiican aad usoo diyaarin karayso iyaduna aad bay muhiim u tahay marka intaa laga yimaado maxaa muhiima waxa muhiima waxaa la dhahdo luqad jireedka like body language-ka yani body language waxa weeyaan waa qaabkaad uga hadlayso xagga jirka hadday noqoto gacmaha hadday noqoto wejiga iyo hadday noqoto jirka intiisa kaleba dhaqdhaqaaqa yani haddaad taagantood yani aad socsoconayso ood space dhaqdhaqaaqa aad helayso qofkuna haddii aanu luuqadiisa jireed aanay wanaagsanayn aad buu adagtay laftigeedu in ay xooganaato waxaa la dhahaa non-verbalka marka labuunba ka kooban yahay public speakingku waa verbal iyo non-verbal oo si guud communicationka u noqonaysa verbalku waxuu noqonayaa waa kelmadaha aad adeegsanayso iyo qaabkaad u hadlayso oo hadala yani kelmadaha eraya iyo non-verbalka noqonaysa waa luuqad jireedka yani qaabkaad uga hadlayso jirka aad u fasirayso waxaad ka hadlayso iyo sidaad waxa weeyaan jirka aad يعني ugu qeexayso ama ugu hoga tusaaleynayso waxaad ka hadlayso marka door qaybood buu qaybsamaa qayb waxa la facial expression kuwa wejiga iyo sidaad waxa weeyaan uga cabirayso waxaad ka hadlayso tusaale hadduu yahay waxaad ka hadlaysaa wax qiiro leh wejigaaga waa in qiiro ka muuqata hadduu yahay waxa weeyaan farxad leh waa in farxad wejigaaga ka muuqata marka mar walba xaaladda facial expression kaagu macnaheedu waxa weeyaan inta wejigaaga waa inuu matali karaya waxaad ka hadlayso xaaladdu uu yahay haddii kale ma saameynayso cid aad la hadlaysid oo haddaad yani waxa weeyaan ka sheekeynayso wax argagax leh haddaad qoslayso saameyn ma yeelanaysid because of kama hadlaysid oo jirkaagiiba iyo erayadaadii baan isla jaan qaadaynin waa marka xaaladda aad ka hadli kartaa haddaad faraxsan tahay inuu wejiga wax farxad la ka hadlaysan wejigaaga waa inuu yani ma garanaysaa uu faraxsan yahay oo uu furfuran yahay marka facial expressionku waa qaybtaas oo wax weeyaan waa dareenka ka imanaya dhanka wejiga qaybta labaadna waxaa la dhahaa waa gestureku waxa weeyaan waa intan waa garbaha iyo gacmaha yani qaabkaad uga hadlayso ee aad waxa weeyaan uga hoga tusaaleynayso amba ugu soo bandhigayso waxaad ka hadlayso uguna taageerayso qaybta saddexaad waxay noqonaysaa iyadu waxaa la dhahaa postureku waxa weeyaan waa dhaqdhaqaaqa yacnihii qofku uu sameynaya intiisa hoose yani spaceku qaadanayo sida uu yani tallaabooyinka u qaadayo marka markuu hadlaya maaha inuu tallaabooyin degdega qaado amba uu meel keliya iska taagnaa haddii uu space furan haysto waa inuu awood u yeeshaa in uu tallaabo uu qaadi karayo la tacalluqda oo la xidhiidha yacni hadalkiisa tusaale kale qofku markuu hadlayo waxa markuu kelmad leeyahay inuu hore soo yar bixi karaa kelmad kale markuu leeyahay inuu dhinac u dhaqaaqi karaa tu kale markuu leeyahay inuu dhinac kale u dhaqaaqi karaa yacni iyadoona degdeg ku jirin dhaqdhaqaaqiisa waa inuu noqon karayaa dhaqdhaqaaq miisaaman oo sugan marka body language-kuna wuxuu qayb weyn ka qaataa boqolkiiba 80 saameynta cidda lala hadlayo iyo waxa lagala hadlayo laftigeeda inuu psychologically uu saameyn ku yeesho cilmi nafsi ahaan ugu dambeyntii maxay tahay waxaynu kusoo gabagabeynaynaa qofku waa in marka uu hadlayo uu garan karayaa amba ay garan karaysaa ciddan uu la hadlayaa waxa uu ka hadlayo oo noqonaysa qodobada tusaale kale hadduu afar qodob baan ka hadlay inuu afarta qodob kaliya ka hadlaa hadduu shan baan ka hadlayna waa shantaas kaliya ka hadlaa waa inta badan waxaynu aragnaa dad hadalka sii wata iyagoo dhameeyay oo haddana yacni ku soo celinayo ugu dambeyn waxaynu ka soo hadalay waa maxay fagaara ka hadalku aynu ka hadalay fagaara ka hadalku inuu yahay awoodda qofku uu u leeyahay inuu gudbin karayo xog uu hayo uu gudbin karayo hal qof iyo wax ka badanba qaybta labaad ka soo hadalay waxa weeyaan faa'iidada leedahay oo ay ka tahay in qofku yahay qof uu noqon karo qof saameyn leh oo hadalkiisu yahay mid maangala dadkana saameyn ku yeesha dhibaatadeedana waxa kamid ah hadaan qofku baranin inuu qofku uu noqonayo qof kalsooni darro qaada sidoo kale noqonayo qof agnaana oo aan wax saameyn yeelan cidna aan hogaamin karaynin waxa kale inuu ka soo hadalay qaababka loo diyaariyo khudbada oo inuu laba qaybood ka dhignay marka speech kala taagan qayb waa qayb presentation oo uu qofku ku soo jeedinayo computer uu soo present kareynayo shay qaybtan waxaan rabaa inuu qofku aqoon u yeeshaa waxa yacni tusaale ahaan kale technology-da waxyaalaha la xiriira oo PowerPoint iyo kale ay kamid tahay qaybta labaadna waxaan niri waa in qofku uu awood yeeshaa inuu garanayo halka xogta ka keenayo
marka inuu xogta keeni karayo teknolojiyadii adeegsan karayo sidoo kalena uu garanayo cidda uu la hadlaya cidda ay tahay waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa inuu presentation fiican soo jeedin karayo sidoo kalena uu soo jeedin karayo waxa weeyaan khudbad wanaagsan marka presentationkii waxa u dhexeeya presentationkii khudbadda waxa u dhexeeya laba kala duwan waxa u dhexeeya mid waa mid la tacalluqda xagga teknolojiyadda qofku ku soo bandhigayo wixii slides ku soo bandhigayo amba yacni computer ku soo bandhigayo application uu adeegsanayo qaybta labaadna waa qayb uu hadalkiisu kaliya uu hadlayo isagoo waraaq yar adeegsanaya oo guideline waa intaas weeyaan si guud waxaynu kusoo gabagabaynay ahmiyadda yacnihii waxa kale aynu ka hadalnay waxyaalaha cabsida keena oo aynu nidhi glossophobia amba public speaking anxiety baa la dhahdaa oo noqonaysa cabsidu qofku dareemo markuu dadka soo hor istaago tanna waxyaalaha lagu baabiin karayo iyo weliba inaan kasoo hadal halka maan imika ku sheegayay waxaa ka mid a inuu qofku marka hore usii diyaargaroobo waxa uu ka hadlayo uu practice sii sameeyo isagoo recording iska sameynayo video ku duubaya mobilekiisa amba yacnihii asxaabtiisoo kale usoo jeedinaya si practice inuu ku sameeyo adigu si guud marka la isugu soo ururiyo inuu qofku uu samayn karayo tijaabo uu samayn karayo si tijaabin karayo ka hor intaanu dadka usoo jeedin uu heli karayo cid ka tijaabisa amba isaga laftigiisa uu mobilekiisa intuu isaga duubo uu arki karayo waxa weeyaan waxa uu ka hadlayo inuu saxsan yahay inuu qaldan yahay luqad jireedkiisana waxa uu qiimeyn karayo ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabaynay haddii aanad u diyaargaroobin waxa weeyaan waxaad ka hadlayso waxaad ku fashilmi doontaa dadka hortooda tana ka dhigan waxa weeyaan doodaada iyo waxaad ka hadlayso iyo waxaad dadka u gudbinaysaba ka hor intaanad meesha imanin waa inaad usoo diyaargaroobi kartaa si fiican usoo diyaarin kartaa aanad ka hadli karinna waxaanad aqoon lahayn waa waxyaalaha ku khashifi karaya ee kugu dhalin karaya cabsida laftigeeda ay markaanad wixii aqoon lahayn adigu waad sogtay inaanad aqoon lahayn deetan kalsooni darrada taa ka dhalataa waxay keensanaysaa inuu khalkhal badan kugu yimaado sidoo kale aad ku khashifanto dadka hortooda si guud crosskani waxa uga hadlayaa qaabku qofku u noqon lahaa qof fagaar ka hadlaa oo wanaagsan dadka wax ka dhaadhicin karaya noqon karaya qof hadalkiisu maangel yahay sidoo kale gudbin karaya xogta uu hayo waxaan rajaynayaa inaad aqoon ka faa'iideen iyo xog idin anfacda wixii su-aalaad haysaan diyaar baan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu